maray horta marka ugu horeysa waa ku salaamaya marka labaadna aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqtigaada wanaagsan ee soo ajiibtay adiyo ragga kula socdo waa mahadsantii meelaha muhiimka ah ee la iska wareysto horta ayay ku jiraan waayo hadii biyo la waayo nolol ma jirto waxaan garanayaa kulli su'aal idin ka soo dhacday waqti aan sida u fogeyno aad oran jirteen 15 casho ya biyaha lagu yar hagaajinaya dabadna hawshaasi meesha ay ka dhacday deemaan garan idinku waa ku jawaabteen midda labaad su'aalaha dhulka shirkadaha meeshan ka shaqeeya maalintii aad nageysay ceelkii hore hadlay waad garanaysaa malaha 5 sanadood baa ka sokayay waqtiga ilaa waqtiga kan eelal dhowrana waa la sameeyay bal waxa biyo la'aantii magaalada ka haysta waa maantana waa ogtay magaaladu waa biyo la'aad waxa maxaa hortaagan ma shirkado badanna waa u gasheen marka masharaa'iga mise waa idinka wax hortaagan dadka badankiisu waxa laga yaabaa inaanay technician ahayn oo aanay garanayn hawsha iyo culayska ay leedahay hawsha haysan waxaa jira 170 hawsha biyo gelinta Hargeysa way dhamaatay gudaha magaalada yes tadi percentage ka haray ilaa muddo intee leeg ayuu ku dhamaanaya waa kow midda kale baybabka marka la jeexayo bugleed way jeexayso baybabka magaalada xaafadaha qaar meesha baybka la dhigayo ciidda lagu si wanaagsan looguma waa habeenkii dadka waaweyn inta badan markay talaabsanayaan way ku turantaraan sida golfan oo kale inta baybabka marka arrinkaana bal in la aaso ayaan ku weydiinaa Maria warisu horto Maria aad baan noogu yimid oo ayaan ugu mahadnaqay si wanaagsan baad noogu timi laakiin anigu waxaan ku weydiinayaa anigu wata tabariyaan ka shaqeyn jiray biya Soomaad karan beebku marka beeb la xiro ee la xiriiriyo tasting baa laga qaadaa waa tasting la yiraahdo ما بالله تمحي لك سابوش هذول واحد كور رميتها ما قرنت اختبار بانتمي اختبار أنا وكوما هنا اختبار سميسي أو ريال ويفشلنت أرجيتي واحد ترى هذا وانو فلين كروين يدي وانو فلين كروين ما فلين كرو أنا كلمة دان لا وار فلين كروين أنا جاوا هيسلم عنك عندي لو يسلمني عويان تسمع أنت أنا قال maaraye adiga iyo groupkaaga horta waa kaaga mahad celinayna jibkan soo jiibteen warbixintan nasiiseen hadii aan su'aasheeda u dhaadhaco waxa weeyaan waxa ku dhex taala wakaalada biyaha waxa ku dhex taala kaalin ceel weyn baa ku yaala oo booyadaha dawladda kuwaas isbitaalada waxa soo dhan ay ka dhaansadaan booyadaheenan magaalada caasimadda waraabiya intaynu biyo helayno miyaa loo sameyn kari weydeen kuwaas oo kale far badan oo ay ka soo dhaamiyeen halkay masaafada dheer ka tagayaan booyadu ama bar iyo galbeed uga baxayaan booyadu magaalada dusheeda in looga sameeyo ceelal caynkaas oo kale ceelka ku dhex yaala wakaalada biyaha ma loo sameyn karaa masam qorshaha meedin ku jirtaa in loo sameeyo si ay meel dhow biyaha booyadu uga soo dhaansadaan oo ay magaalada markaaba u siiyaan shilalka faraha badan ee ka dhacaya labada koone bariga iyo galbeedkuna ay u yaraadaan marka su'aashaydu waa ceelka kaalinta ku dhex yaala oo badan ma la heli karaa maaraye wasalaam horta maareeyaha uu mahadsan yahay waana nin khabiir ah runtii intii imka uu joogay waa nin aad u dadaalaya waayo fooq 30 sano dhismeeyay waa biyo la gelinaya nin karti badan oo aqoon badan oo leh anigu ammaan baan u hayaa kowdi ammaan baan u hayaa xaaladana waa la ogay kowdi maareeye anigu waan ku ammaanaya way maareeyuu dadaalaya mar walba waa dul taagna taa uu iga leeyahay oo carqalado badan oo COVID-19 iyo caalamka wax badan oo carqalado badan baa qabsaday oo imika aan laga hadli karin kowdi runtii anigu waan booqan jiray marka maareey aad baan runtii su'aasheeda waxa ka horeysiinaya waxa siinaya maareey ammaan kowdi ammaan baa siinaya maareeya waana aqoon badan oo dadaalaya talabaad kale maareeye كل هاوش وان كوغلي هداد ما أنت هيسوي تقليل وسيد إله حالة القوم اللي جالس هو جبوس مساء وقت ما يو
biyaha geedeeble biyo kale lagaga maarmi kara ma la heli karaa maaray mustaqbalka ayuun baan leeyahay inta u sharaxdo iyo kulli waad noo sharaxi doontaa maamkina waa sidaa maareeye aad iyo aad baan ugu soo gabagabeeyay billaah maareeya iyo baalihiisa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxay nagaga dhigtayun biyimay harkiisa biyi harkiisa way nagaga dhigtay Soomaaliyo dhan bay kaga dhigtay anigu waan ogeyno way taynu dadibka miyiga u baxnay boora soo dhex marinay meel walba idinkiyo leerkuna isku haysataan wali dadku ma fahamsana iyaga leerkii iyo birtii inay haystaan horta marka ugu horeysa marka waxaan taaganahay biyuhu bay nagaga dhigtay waqti ma ayuun bay aynu ku mayran doonaa haddii alla yiraahdo waxaan ahay nin u bisil shaqada dawladnimada waxaan dareensanahay in aan xumaano shakhsi jirin ixtiraam buuxana oo ku haya marka waad maasanta taasi waa qodob waad maasanta xilbaan haddii aan bilaabo inaan ka jawaabo أنتم ما رأيوا هذا يهل السوق عم صدق ما بعلم السلام عليكم هرتواد مع سنتين دمانتين عاد بعد مع سنت سؤالات نوديسينا وأنا تكود قاعدنا وأنا نكجوابنا وحنا وحوي نقولي قرتي ذا احترام وين بالله يا قلها وأنا قولي قرتي ذو وحكوشرا ركسين يرى أو ده khibrad iyo waayaragnimo iyo daahaanba u siinayra halka markaan u jeedo waxaan maldahayaa golaha waa golaha looga baahan yahay inuu baro sidoo dhaqmi lahaa golaha cusub ee wakiiladu ay ku jiraan ragga dhalinyarta ah ee faraha badan leh ee ku cusub shaqada dawladnimada iyo shaqada xeer dejinta waa golihii tusaale u ahaa waa golihii u ahaa qudwada cid ay ku dayanayeen runtii marka idinkana dee horta mas'uuliyadda dheeraadka ayaa idin saaran qolada wakiilada markaynu xogaa ka aragno xukuma guursida ku dayda guursida xagga guursida ayaga marka cilmo wadno qoladaas aad ku jirtaa adna qoladaas ayaad ku jirtaa waanad mahadsantii su'aasha koobaad weydiiyay xildhibaan xirsi waad mahadsan tahay 15 cisho xildhibaan waxa ahayd baabkii magaalada iimanayay geedable ka iimanayay markaynu ku xidhanay barkadan hore biyaha waa baabka magaalada ka iimanaya dibadda ka iimanaya waxa loogu talagalay barkadii horena inuu ku xidhnaado barkada cusubna lagu xidho markii barkada hore aynu ku talaalnaa barkada dee wala daloolinaya marka haddii dalaalkaasi nila yar dheeraado kala shaqadu uun baa taxadir baahayd wax kale ma ahayn baabka cusub marka lagu xidhiyay barkadii biyuhu ku jireen marka hadiiba ay matalan ay shaqadaasi yar dheeraato in dadku sii ogaadaan ba ay saameyn keento marka alxamdulillah waqtigii loo tagalayna way naga dhamaatay wax dhibaateena kama iman awshaasi marka waxa filay taasi ahayd si fiican u fahanto su'aasha labaad waxay weydiiyay wuxuu ahaa xildhibaan farsamayaqaanka jineerka maxamed quule wuxuu yiri hore haad lebaynu tagnay mise xirsi waxa taas hore haad lebaynu tagnay 5 sano ka hor xildhibaan waa mahadsan tahay horta marka laga hadlayo infrastructure-ka biyuhu waa qaali horta midaan isla fahanno kii horena China dhisay ee dawladda Soomaaliya leedahay may dhisin mashruucii hore waxa hirgeliyay waa China dhaqaalaha Soomaaliya leedahay dee laguma hirgelin kana dawladdeenu dhaqaalaha waxbay ku dartay laakiin waxaynu ku tiirsanahay waa deeq iyo caawimo dibadeed oo waqtigeeda duruufaheeda iyo duruufaheeda maxaa kala duwan ba leh haday noqoto dhinaca waqtiga qaabka uu imanayaan qaabka loo waxyaabo caynkaas mashruuca biyaha marka leenahay golahan fadhinana ragga aadka xogaalka u ahayn waxay u arkayaan hal shay oo isku xidhan laakiin ma aha hal shay oo isku xidhan waa shaqooyin kala duwan oo hal magac u wadaaga waa shaqooyin kala duwan xildhibaan xirsow oo hal magac u wadaaga marka qaybo badan oo dhamaaday oo way jiraan xildhibaan xirsow shaqooyin badan oo dhamaad waqtigoodii ku dhamaaday waa jiraan mashruuca magaalada gudihiisa ka hadlaya la waqtigiisii waxa ka dhiman 30% dawladda waqtigiisii buu ku jiraa mashruuc qaybaha Itoobiya ma ka shaqeynayay marka waa shaqooyinka kala duwan midba waqti uu leeyahay dabcan laakiin markaynu magaalada joogno amba aynan aad hoos u ogeyn waa inaka way noo hal shaqo waxa la muxuu dhamaan waay
laakiin xilladii baabka geedebla bilaabmay funding badan ba lama hayno mashruuca magaalada gudihiisa waxyaabo badan oo kale imika qabsoomay midna ma jirin marka horta waa kala duwanaanshaha shaqada oo kala gogooniya waana wax isku xidhan oo de imika wadada kale tusaale ahaan wadadan tusaale soo qaadana wadada waxa laga yaabaa 500 mitir marka la dhiso quruxdeedana in la soo sawiro lana isticmaalo laakiin mashruuca biyaha imika waxaan dhignay magaalada intaan dhignay yaa qiyaasi kara inta beebaan dhignay cid qiyaaska ay sameey jirtaa magaalada inta kiiloomitir yihiin cid qiyaaska ay sameey jirtaa oo oran karta intaas oo kiiloomitir baad dhigtaan ma jirto ha may waxaan dhignay waa 200 kiiloomitir magaalada beebkaan dhignay xilliban cilmi 200 kiiloomitir ha hadii saa loo fidiyo sheekh uu dhaafay ama filay ha dhamaan degmooyinka magaalada 200 kiiloomitir baan dhignay hadii saa loo fidiyo waxaan filanaa ilaa halkii noqonayso qiyaas hadii la isdaba dhigade toos la isku daba dhigo inta noqon karto yaani كدا سؤال مليدي ما مليدي كدا ودا ما يصير حلوان waxa weeyaan waa 200 kiiloomitir waxaanu dhignay laakiin wadada marka 500 mitir la dhiso de waa la isticmaalaya oo la maalay laakiin kan saamaha marka shaqadu iska wada dhamaato ma la isticmaali kara hortaas waa qodob de magaaladuna waa magaalo weyn oo runtii magaalo weyn oo kabac fara badan de alxamdulillah nabadii waxa hirgelinaysa dawladnimada ilaahayna siiyay kabac fara badan ka socdo shaqadana de waxaynu runtii intii hore wadanka waxa lagu jiray 19 ilaa 2012 hawlihii dejinta dawladnimada adkeynta dawladnimada lagu jiray iminku ma infrastructure-ka runtii loo soo jeestay taasina waa qodob kale deegaankeena reer Soomaaliland waad garanaysaan harooyin waaweyn iyo wabiyo midna ma lehin waxaanu markaa raadinaynaa waa biyahan hoose hadii aynu ilaalin weyno oo iyagana shaqo badan iska xil saari weyno deegaanka ilaalintiisa iyo biyaha cirka ka faa'iideysigiisuna khatartoodu waxa weeye inay naga go'aanba waay waxay u baahan kaydka hoose xaqiiqda marka lagu hadlayo in la xukumaa loo baahan yahay oo laga fikiro biyaha roobka waay waxa weyn dhibic kastoo biyo la qabtaaba faa'iido ayay noo soo kordhinaysaa taas waa qodob waa tii keentay dadka reer Daar es Salaam oo beerahoodii gaarka ahaa deganaa ee awooyla ka way deganaayeen oo dhulkoodii u gaarka ahaa inaynu raahno iyadoo wakaaladu qorshaha runtii fulintiisa iyo soo bandhigidiisaba ay lahayd wasaaradaha ku shaqada leh wasaaradda biyuhu ka mid tahayna ay ku taageertay inaynu dhulkiina ma qodan kartaan kama qodan kartaan ninkii beertiisii jooga oo biyaha 60 mitir ku gaaraya oo biyihii macaan yihiin lagu yiri kama faa'iideysan kartid maalmo dhaweedo arrimo la wareejinaya laha wakaaladu wacaynkan ay qoliyaha reer Daar es Salaam soo hadleen waxay warina daarado abalaawata beeraha yagiina biyihii baad ka xidhay iyadoo halkan ay tahay halkii ay qoyskaagu deganaayeen hargeysana waxaan arkaynaa inaan lagu ogeyn war beeraha biyaha noogu sii daa beeraha biyaha noogu sii daa waana daw ilaahay baa xaq u siiyay sharciyadii bay leeyihiin dhul dan guudada ma ahayn arinkaasi waa daw haddaba reer Hargeysow iyo golayaasha qarankow Daar es Salaam waxaanu biyaha uga xidhnay balina Hargeysa waxay hesho madaxweynahana waa deegaankiisii ana waa deegaankayga Soomaaliland in badan baynu aragnaa ragga madaxda ah ragga siyaasiyiinta afka beelaha iyo afka ku hadlaya deegaanada ay ka soo jeedaan horta taa hal ogaan go'aamada caynkaas ee adag waxaan u qaadanay oo biyo 60 mitir beeri u jira looga joojiyay waa Hargeysa si wax loogu raadiyo horta taa hal ogaan wakaaladu halkaas ay gaadhay حتى وجهدنا يانو لا يح رجع حسبية معارض كوتشرين حوجال كأو هاين وكالد وحي قبته وحي قشة وحي جدو كلمة هاي رفض فضل سوي استاجا ميديها مالين كستاين وقعدان وردي ماذا يدي بانو بيترناي سانو هرجيسو قاعد يجنو هذا إذا محبكوا درسين كرين شو شيء حاجة شذا تاسنوا قدر حلبان قوله تدي برسنت بقى هرسن بقى ترين تو كده معنا حلبان واد ما هتنتهي مشاريع ده إنه معمولنا هرت طبعا وحويان وحنا شركة ده نوي نوف شقيان قار موادنينا هي قار أجنبية دقالها هن الدولة ده نجت حيارة ما كان دقالها كهذا إنه حلاقي يا بعض تكون مركب مليون اسم قلنا إسرائيل خسنة الدولة ولا هذا هاي بيكوتشران واحد دولة الأحمر العجينة ما تشرته واحد دولة الأحمر العجينة
ma jirto waa commitment heshiisyo dibadeed oo aynu galay oo qaabka loo maamulayo waxa aynu ka soconayo mashaariicda qaabka loo ilaalinayo dabcan shirkadaha aynu shaqada u dhiibanaana sida shirkadaha gaarka ee aad shaqooyin ugu diran kartaan haddii guri ku dhisayaan ama wax kale ku qabanayaan qaarkood problems bay yeeshaan qaar baa shaqada la habsaama qaar baa contract sidii loogu talagalay u fulin waaya marka waxa dhacday dhowrkii sanadood ugu dambeeyay shirkado badan shaqada ka saarno oo qaar ajnabi yihiin shirkadaha shaqada ka saarnay ajnabiga waxaan filayaa inay imika marayaan 3 shirkadood ee contract laga bedelay iyadoo dawladdu roolkeeda la cidiina la shaqeynaysa dabcan lagu wada qancay lana arkay maxaan idhaahdaa in loo baahan yahay go'aamada in la qaato marka imika waxaan idhi shirkada waanu bedelnay sababtuna wax kale ma ahayn shaqooyinkii bay la yardaahday covid kuna saameyn badan ayu shirkadii ku keenay dibadda inooga yimid oo waxyaabihii adduunka u kala socdo dhawaatan dhibaatadu dhacday lacagtii iyo wixii marka waxaan filaynaa shaqadaasi marka wax buuran ma aha marka shirkada cusub shaqada bilowdo waxaan filayaa oo muddo bilaayna ku dhamaan waxay noo harsan waa baabkii muhiimka 6 kilomitir baa ka harsan ba waad maasanta xilbaan qool leh xilbaan cilmi waad maasanta xilbaan hadalka cadna waa fiican yahay ixtiraamna waan kugu hayaa su'aashaada tiri waxa tiraahdo waan fulin kari weyne su'aashaada saasaad xilbaan waanad ku maasantahay waxaan halkan u yimid xilbaan cilmi adiga iyo qofkii kale isla su'aasha isweydiinay inaan ka jawaabo qanciyo waana ku qancinaya waliba waxaan kugu casuumayaa inaad noo timaado maababka iyo barkadaha iyo baabka iyo xaba hadday nala soo eegto oo nala soo aragto mid horta faalan ku yaraday halkii tayska biyaha tijaabintooda xilbaan cilmi hadii uu jiro shay maanta aynu qabsan karnaa oo waxayna taraya waxay noo diidan ma jiro oo shaqada dawladnimada waxay naga taraya ama baahi dadkeenu qabeen arinka biyaha tijaabadooda iyo baaritaankooda tusaalaan uga soo qaatay qolo xildhibaano golaha wakiilada maalin la kulmayo yiri waa wakaalada maxaa soo gali baaritaanka wakaaladuna waxa looga baahan yahay biyo clean and affordable yani nadiif xildhibaan yar dhameystir waxa ka raali noqon sheekadii isaga wateeda xildhibaan adigu waad su'aashii waad weydiisay may wax dama weydiina sheekadii isaga wateeda baan ku ma santa xildhibaan waan kaftamana xildhibaan ay iyo rakaale iyo kale xogay shaadi ma laga jawaabiyaa dhageysaale arinka waxaan saalan soo qaatay tijaabada biyo waxa ka sheekiyay qolada oo sheekiyay kiis dhacay oo runtii muujinaya ahmiyadda ay leedahay inaynu helno awoodii caafimaadka biyaha dalka inaynu ku ilaalin lahayn iyadoo dawladdu ka mas'uula arinkaas saalan soo qaatay waxa qoys baa booyadu dhaamin jirtay u keentay biyo qoys dibadda ka yimid gabadh uur leedahay ilmasido ilaahay qadarkii guriga waxa la joogay inaan miyi ka yimid baa jooga guriga marka inankii biyo isaga ilaahay qadaray biyaha la shay marka inuu cabis tiraado cabis sire markuu sanka u dhameeyay buu baashi la oran jiray dhibta ayuu ka wariyay marka uu joojiyay marka xaafadu xidhi biyaha dhib ka waraysan dabada shay qolada shaybaarka la soo xidheedaan qolada shaybaarka marka la soo xidheedaan baa shaybaarku booyadii nambarkeedii magaceedina waa siiyeen booyadii bay la hadleen laba jeer marka la hadleen booyadii waa caayday namadii waa caayday waxa ku tawartaga waxa caayba markaan qolooyinka dabcan qaar iska raacaysan ma jira ma dhalinyara marka caayday kadib waxaanu yeelnaa baa la yiri ciidanka wadamarista iyo biliiska waraaq u qornay dabeetan kuna booyada caynkaasa hala keeno ciidanka wadamaristu maalin jimcaha bay keeneen maalintii jimcaha ahayd khamiis bay soo qabteen jimcihii bay markaa dabcan u xidhnaanaysa sabtidii booyadii loo tagay waa la ogaaday waa la baaray meesha ka soo dhaamsan waa la hubiyay booyadiina waa la nadiifiyay waa la iska sii daayay waxaan lagu dhiday haddaad noo iman lahayd 30 daqiiqo ayuu wuxuu ku dhamaan lahayd waxaa lagu dhiday dib ha ugu celin qoyskiina waa wixii loo baahnaa waa laga qabtay marka waxtaan uga socdaa waxa weeye de ilaahay baan qadarin qoyskeena hadii biyo dhib oo caynkaas ay cabi lahayd de ilmaha yar uurka ku jirana waa dhibaato ay leedahay qofka reer Hargeysa ama booyada ka cabaan ba qasabada ka cabeen in biyaha laga hubiyaana doo waajib nasaaran oo waajib in nasaarano inoo saaran maxaan idhaahdaa de dawlad ahaan iyo ummad ahaanba marka taas waa ta baashi xilbaan cilmi yiri xilbaan cilmi waxaan ku Hargeysa waxa la dhigay 200 kilomitir waxa laga dhisay maxaan idhaahdaa barkado fara badan oo mashruucan Jarmalkii wuxuu dhisay 4 kiyara ka kalena 4 barkadood iyo rabo dhisay oo 8 barkadood oo waaweyn oo laba runtii waxoogaa u dhiman tahay oo 30% ka mid ah
shaqada infrastructure-ka amba kaabayaasha biyaha wadanka magaalada Hargeysa ka qabsoontay runtii waa shaqo aad u weyn dadku maadaama inay wali manaafacaadsan inay su'aalaha aad weydiinaysaan isweydiiyaan waa daw waana ka garaabaya laakiin waxay noo qabsoomay dawaa wax idin qabsoomay shacabka reer Soomaaliland u qabsoomay umadahaan inoo qabsoomay maaha wax Maxamed Cali Daarood u qabsoomay maaha marka inaynu ka garaawno wixii noo qabsoomay waa waxaan wada leenoo dawladahaan inoo qabsoomay marka haddii la yiraahdo inoo qabsoomay aniga waxba yeeli mayso gaar ahaan qof ahaan laakiin wixii noo qabsoomay wax noo qabsoomay waa wax banaanka yaalo la taaban karo maaha waxa waa iyo hadala marka taasi noo qodob wakaalada biyaha xilibaan marka taan soo hesho qolooyinka cadaanka ee midowga Yurub iyo Ingiriiska iyo baad ka wareysan doontaa waa hay'ad runtii aad u efficient waa tusaalada markay imanayaan qolooyinka yaqaan wakaalada biyo qaabka u shaqeeyaan hay'adaha dawladda qaabka u shaqeeyay bay ku dhacaan markay noo yimaadaan dadka ajnabiga wax kala maaha wakaaladu ma iyo dhageysa xilibaan wax kala maaha xilibaan waa dila fahansantay aan ku dhamaystiro marka xilibaan cilmi waa su'aalaha aan ku fahansanay yarshi marka tataala waxa weeye waxaan uga socdaa waxa weeye wakaaladu waa hay'ad efficient oo shirkaduhu markay shaqeyn waayaan shaqada ka saarta shirkad 10 sano ma kala laalaadaan qofkii shaqeyn waayana de waa laga saaraa shaqadan bacdaan ahaado iminka mashruucan magaalada gudihiisa labadii nin labada shirkadood iska soo horjeeda ka madaxda labada dalka waan ka yeerin wax kale uma aanan yeerin reportka waa la agay shaqadii baa lagu qanxo waayay waad mahadsantahay baa lagu dheefay fasaxbaad yaraanada booyada xilibaan jirtay iminka geedib la xanu diyaarinay laba ceel booyado ka dhaamiyaan maalintii ilaa 40 ceel ilaa 40 booyadood baa taga maalinta ugu yarta marka imika way tagaan ceelna waanu diyaarin xilibaan libaaxo magac miskiin laga habay oran jiray Raaxamar aad baasantahay waana xoogaal biyaha geedibla maxaa laga maarmi karaa biyaha roobka aqoonteedii laakiin iyo kartideedii iyo dhaqaalaheedii dawaan laga helaa xilibaan saaxiibkay laba shaad naanista weyn leh waqtiga ay ku dhamaanayaan ku meeran doonaan xilibaan horta waa mid shaqooyinka marka la wado waxaan u baahanahay fariinta ay dadka u dirayna mar walba inaan miisaano in ilaalino way mas'uuliyad bay naga saaran mas'uuliyadda koobaad waa shaqada shaqada marka la dhameystirana dadku ha manaafacaadsadaan marka waxaan filayaa mashruucin laba waji oo lahaa wajina waa mashruuca magaalada dibadiisa magaalada dibadiisa ka mid kaasi u dhamaaday kii gudahana 30% ma inoo harsan waqti badan qaadan mayso insha Allah muhiimaddu waa in shaqada dhameystirno maray wixii aan kugu yeernay ama hadalkii aan kugu yeernay ama shaqadii qaranka aan kugu yeernay su'aalihii aan ka weydiinay iyo warbixintiiba si wanaagsan baad noo siisay insha Allah golo markuu soo galo ee uu yimaado wixii aan tiri wax kastaba haadaane waanu geyn doonaa waanad ka arki doontaa shaqaduna marka aad 30% aad leedahay gudaha magaalada wax yar baa haray insha Allah intaana wad dhameyn doontaa waqti dhow insha Allah waan ku ducaynaynaa oo noogu soo ducaysan inaan biyo helo golahana waanu geyn doonaa maray